محد عاي وريا غري محد عاي وريا غري كان أيضا ما سبسدين dhawaq rasaastan culus ee aad maqlaysaan iyo ciidamada diyaarsan ee aad u jeedaan markan waxay ka socdaan beesha biimaal kuwaasi oo doonayo inay kaga xureeyaan goob walba oo dhulkooda ka mid ah oo ay shabaabku ku sugan yihiin dagaal saacado kooban qaatay maalintii shalay waxay shabaabka ugu dileen in ka badan 12 dagaalamo shabaab ah tiro kale ayay ka dhaawaceen waxayna si guud ugu qabsadeen deegaano ay ka mid yihiin jilib marko iyo gandarshe oo hoos tago gobolka shabeellada hoose beesha biimaal waxay ka mid yihiin beelaha Soomaaliyeed ee awoodda badan ku leh shabeellada hoose markan waxaa ka go'an dhulkooda inay ka xureeyaan siyaasiin xildhibaano iyo dhalinyarada beesha oo isgarabsanaya ayaa markan ay ka go'an tahay inay qaataan qoryaha qaybna ay ka noqdaan ka xureynta dalka kooxaha khawaarijta oo in badan Soomaaliya dhibaato ku haysay iyaga oo garabka helaya koox ka mid ah nabad-sugidda oo maalintii shalay dagaalka kala qayb qaadatay hadda waxay xureeyeen 2 goobood kuwaasi oo muhiim u ahaa shabaabka horeyna dadka dhibaatay u geysan jireen